runtii waa mahadsantahay Muxidiinow barnaamij Gungaar runtii aniga markaan diyaarinay xitaa ma aanan filayn in saameyn intaas leeg uu yeelanayo ujeedkaygu waxa inaan dadka u soo bandhigo xogta argagixisada inaan dadka geliyo feejignaan iyo inay wacyi ka qaataan dhagarta ay samaynayaan argagixisadu si ay bari ka maalin uga feejignaadaan in hab noocaas oo kale lagu dhagro laakiin waxa ay soo baxday heerka aan ka filayo feejignaanta heer ka badan baynu dadkii geliyey dadkii ay hadda ayagii oo dhan feejigan yihiin ka diyaar garoobeen dhagarta argagixisada waxaa hadda shalay ugu dambeysay layla wadaagaya dhalinyaro ciyaal xaafadeeda kilib muuqaal iyaga iyo askari dhex maraysay qori sitay oo ay dhalinyaradii ku buuqayaan oo leeyihiin waryaa ma daawan miya Gungaar qoriga taa siita maxay tahay waa lagu dili karaa macnaha dhalinyaradii ayaa wacyi gelinaya askarigii inuu feejignaan muujiyo maadaama ay habacsanaan ka muuqatay marka runtii waxaan sidoo kale feedback aan ka helay barnaamij ka mid ah inuu dadka garaafika uu gaarsiiyo meel aad u sarreysa fikirkii ay ka qabeen argagixisada iyo wax kastoo la halmaalo fikradaha xag jirka ah oo dadku hadda ay arkeen al-shabaab inuusan u socon dawlad ama qof gaara ee u socdaan dadka Soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah sida bahalnimada ah ninka barnaamijka aan ku soo bandhigay uu u sheeganayo inuu dadka Soomaaliyeed u xasuuqay waxay gaarsiisay qof kasta inuu galo dareen ah war nimankan xagee u socdaan qof ay dhaafayaanba ma jirto dadka nool ay badbaado u tahay sababtoo ah dadku waxay fahmayeen barnaamijku wuxuu ka sheekeynayaa qofkaan uba haysan sida loo gaado iyo sida hadduu sameeyo ay adag tahay inaan loo dilin qofka hubaysan dhinac kasta marka waxay fursad u tahay kan waaba dhintay allah u naxariisto qoyskiisana waa la dareemaynaa dhibka gaaray mana jeclayn inaan maaragtay qof Soomaaliya aan xanuunka ku sii badiyo balse haddana dhinaca kale dadka nool ee Soomaaliyeed ayuu wuxuu u yahay badbaado iyo inay feejignaan ka qaataan marka halka aan u soconnay waa in inta nool aan ka shaqeyno sidii ku badbaadi lahaayeen